kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada halkan ku xiran baarka 252 habeen wanaagsan. waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga kooxda kubadda cagta Barcelona oo dooneyso inay tababar u magacaawdo Mauricio Pochettino. haddaa janaalka baarka 252 ku cusub tahay subscribe saaro si ay kuu soo gaaraan muuqaaladii soo socda. muuqaalkan la wadaag taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona meel kasta ay joogaan si ugu mid noqdaan janaalka baarka 252. haddaan gudagalno barnaamijkeena caawa, tababarihii hore kooxda Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino ayaa laga soo waramayaa inuu u cadcad yahay inuu shaqada tababarnimo Barcelona ka bedelo tababare Quique Setién. Pochettino shaqo la-aan ahaa tan iyo markii uu ka tegay Tottenham dhamaadkii sanadkii hore, laakiin tababaraha reer Argentine ayaa si weyn loo filayaa inuu kusoo laabto garoomada xilli ciyaareedka 2020 iyo 2021. Quique Setién ayaa la sheegay inuu sii ahaan doono tababaraha Barcelona ilaa iyo lugta labaad ee wareegga 16 ee Champions League ee la ciyaari doonaan kooxda Napoli 8 Agoosto lagu ciyaari doono garoonka Camp Nou. laakiin wararka la isla dhexmarayo ayaa sheegaya in 60 jirkaan mustaqbalkiisa shaki ku jiro. Barcelona ayaa xilli ciyaareedkan lagu garaacay horyaalka liiga, waxaana raadinaysaa tababaro cusub kooxda uu hogaamiyo, iyadoo lala xiriirinayo tababarihii hore Laurent Blanc iyo Patrick Kluivert. si kastaba ha ahaatee, wargeyska Marca ayaa sheegaya Pochettino ugu cadcad yahay inuu noqdo tababaraha cusub kooxda kubadda cagta Barcelona. wararka ayaa sheegaya in Barcelona diyaar u tahay in tababare ka dhigto 48 sano jirkaan bilaa shaqada ah tan ilaa markii uu ka tagay kooxda Tottenham Hotspur. sidee u aragtaa in Barcelona Pochettino ay ka dhigto tababaraha kooxda? sidee kula tahay kooxda hadduu kusoo biiro? muxuu kusoo kordhi karaa isleedahay? dhanka komitiga noogu soo reeba. waa mahadsantihiin. intaan muuqaalka xiga isku arki doono, sidaas iyo nabadgelyo.